Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Misku aragtay madax xanuun hal dhinac kaa qabto, qaab dikaan ama garaacis oo kale loo dareemo, watana lalabo iyo matag, iftiinka iyo shanqarta oo ku dhiba, xanuunkaasoo saacado ama maalmo ku hayn kara. Mararka qaarna inta uusan ku qaban indhaha ka dareentid waxyaabo digniin u ah sida xariijimo ama goobaabino iftiin ah oo socsocdo ama bililiglaynayo, ama qayb ka mid ah arag oo mugdi kaa fuulo ama wejiga dhinaciisa oo kabuubyo ka dareentid. Haddii aad isku aragtay astaamahan, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasho isbitaalada East End. Xanuunkan waa goonjab ama dhanjaf, afka qalaadna lagu dhaho migraine. Waa madax xanuun ku dhici kara da' kasta, lehna astaamo ama digniino la dareemo maalin ama 2 maalin ka hor inta uusan xanuunka ku qaban, sida calool fadhi, niyad jab iyo walwal, giigsanaan qoorta ah, kaadi iyo hamaansi badan. Saacado ka hor madax xanuunkan waxaa indhaha laga dareemaa muuqaallo iftiin wata iyo kabuubyo dhinaca wejiga, gacanta iyo qayb jirka ka mid ah. Goonjabka waxa keeno si fiican looma fahansana, laakiin waxaa la aaminsan yahay inuu ka yimaado khalkhal ku dhacay dambaalada maskaxda u kala goosha, khaasatan midka loo yaqaano serotonin. Sidoo kale waxaa la ogyahay in qoysaska qaar u nugul yihiin xanuunkan, taasoo tilmaamayso inuu hiddaraac noqon karo. Xanuunkan waxyaabaha kiciya waxaa ka mid ah 1. Isbeddellada hormoonnada sida xilliga caadada, xilliga uurka iyo dhalmo-deyska. 2. Qaadashada daawooyinka hormoonnada ka samaysan. 3. Cabitaanada kafeega ku badan yahay. 4. Walwalka iyo fakarka badan. 5. Iftiinka iyo carafta siyaadada ah. 6. Hurdo yarida iyo hurdo la'aanta. 7. Isbeddellada cimilada. 8. Haddii jirku ku yaraato macdanta magnesium. 9. Cuntooyinka la soo warshadeeyay maadaama ay ku jiraan kiimikada aspartame oo lagu macaaneeyo cuntada iyo MSG oo lagu xifdiyo, lana arkay inay goonjabka kiciyaan. Madax xanuunkan waxaa badanaa lagu qaldaa nooca loo yaqaano tension headache oo ka dhasho isku buuqa iyo kacsanaanta oo ah midka ugu badan ee bulshada lagu arko, kaasoo aan maalin dhoweed ka soo hadlay. Goonjabka ma keeno faalig, qofkana naafo kama dhigo, laakiin wuxuu qofka ku qasbaa inuu joogteeyo qaadashada xanuun baabi'iyeyaasha, kaasoo keeno in la qabatimo kadibna isu beddelo madax xanuun raago, loona yaqaano madax xanuunka ka dhasha xanuun baabi'iyeyaasha, kaasoo isagana aan ka soo hadlay maalin dhoweed. Goonjabku wuxuu leeyahay xanuun baabi'iyeyaal u gaar ah oo loo isticmaalo markii la dareemo digniinta ka horreysa madax xanuunka si loo joojiyo xanuunka intuusan imaan. Goonjabka waa laga hortagi karaa haddii aad iska ilaalisid waxyaabaha kiciyo. Sidoo kale waa la xakameyn karaa xanuunkiisa, laakiin lama suulin karo. Dadka yiraahdo goonjab ayaan qabi jiray wuuna iga guuray waxay badankood horey u qabeen madax xanuunka laablakaca ee tension headache. Wixii su'aalaha noogu reeb qaybta commentiska ee muuqaalkan, waana mahadsantahay.